bulshooy bishaaro bishaaro warheede waa maxay bishaaradu soo ma ogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex cilaajinayo oo Dr. Axmed Cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo ilaan xaaji xasadkayga baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga boqolka qof igu dhex darayeen haddaba ina keen aan booqanne Dr. Axmed Cilaaj laga raysay wixii hore Al-Hilaal Herbal Online waa xarun daawo dhireed oo leh goob jiif ah bukaanku ku nasto ilaa uu ka bogsanayo laguna daaweyn sidoo kale Al-Hilaal Herbal Online waxay leedahay gargaarka degdega ah oo qofka xanuunsanaya gurigiisa lagu soo daaweyni Al-Hilaal Herbal Online waxa kale oo laga daweyn macaanka dhiigkarka rheumatismka maqaarka kaliya xanuunka massage toobin waafaqsan sunnada allergiga gastriga iyo daawo ka caawinaysa dhalmalaanta jinka iyo umusabiyaanka xarunta Al-Hilaal Herbal Online waxay ka daaweynaysaa riyooyinka baqdinta leh iyo qarowga ayada uu diyaar kugu yahay specialist Dr. Axmed Cilaaj daawadiisana lagu caafimaaday haddaba waxba yaan hadal kugu daalinine soo booqo xarunta Al-Hilaal Herbal Online oo ku taala xaafadda Islii Second Avenue gaar ahaan qaybta 7 Street wixii faafayntaasi dheer kala xiriir telefoon lambarka eber 7 eber 5 7 7 oo laga heli karo Dr. Axmed Cilaaj muslimiinta meel kasta dunida aad ka joogtaanba waxaan idin rajeynayaa caafimaad iyo cimri dheer iyo cibaado san oo aad ku waartaan meel kasta dunida aad ka joogtaan intaa kadib barnaamijkeena caawa wuxuu ku saabsan yahay waxaa loo yaqaano waswaaska dadka inta badan ka sheegto waxyaalaha waswaaska ku saabsan ee maskaxda ka mashquuliya wax walba ay markaasi ay ka shakiyaan shakiga farada badan ayaanu doonaynaa inaan ka hadalno barnaamijkan uga hadalno waxaan rabaa walaalayaal inaan idin xasuusiyo nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu ilaahay subxaanahu watacaala kusoo dejiyey in mar kasta oo qur-aan uu akhrinayo hadda waa qur-aan wax la akhriyo ama camal la sameeyo waxa ugu wanaagsan waxa weeye waa qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala oo la akhriyo sidaa awgeed baa waxaa la yidhi haddii aada qur-aan akhrinaysid fastacid billaah min ashaytaan arajiim fastacid billaah ayaa la yidhi haddii aada shaydaan akhrinaysid waa in markaas haddii aada qur-aan akhrinaysid waa inaad tacawud la imaado oo acuudu billahi min ashaytaan arajiim aad tiraahdi taas oo la diidayo markii aada qur-aanka ku dhex jirtid oo qur-aanka aada akhrinaysid in uu shaydaanku waswaasiiyo shaydaan kaasii joodiyo kaa mashquuliyo qur-aankii ayaa lagu diidayaa marka waxa weeyaan maadaama wixii ugu sharafta badnaa ee qowl kalaamkii ilaahay subxaanahu watacaala loo diidayo in shaydaan uu soo dhex galo oo waswaas uu marka halkaa meesha ku furo oo la yidhi ilaahay ka magangal shaydaanka intaadan qur-aanka akhrinin ka hor maxaad u malayseen marka annaga oo waxa weeyaan dunuub iska dhex dabaalanaya waxa weeyaan acmaashoodii maaragtay aan yani waxyaalo badan oo qaladaad fara badan ay ka buuxaan waa kasii xag jirnaa weeyaan umana dhowin marka annagu waxa weeyaan waa in aan mar walbo aan shaydaanka iska naarno acuudu billahi min ashaytaan arajiim wax walba oo markaasi aan qabanayno hawl kasta oo galayno shaydaanka inaan iska naarno camal kasta oo la bilaabayo khayr camal kasta oo khayr ah cibaado ama camal kale oo adduun wuxuu doonaba ha ahaado in shaydaanka la iska naaro acuudu billahi min ashaytaan arajiim la yiraahdo bismi illaahi raxmaani raxiim waswaaska marka farada badan walaalayaal waxaan rabaa inaan idiin sheego aayad iyo suurad haddii aada 7 jeer mar walba kusoo celceliso usan wax waswaas ah usan ku dhibeynin ood laasimto suuraddaasi waa suuratu nnaas waa suurad gaaban dad badan ay wada garanayaan oy wada xifsan yihiin macnaheeduna aada u sahlan yahay garanaysa laakiin macnaha ku jiro u baahan in aada loo sii maaragtay tixraaco oo aada maaragtay loo sii fahmo ayay u baahan tahay haddii aada 7 jeer ku celisid maalinkii acuudu billahi min ashaytaan arajiim bismi illaahi araxmaani araxiim
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما لنك تضبطشر وادي كرتا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. آيات أصلا كسر العلي ما لنك تضبطشر له haddii aad sidaas samaysid oo ayado kale oo badan oo marka ayagana waswaas ku saabsan aad akhristid qur-aankii aad saaxiib la noqotid waswaas iyo shaydaan iyo adiga waa kala tegaysaan banaanku kaa maraya oo kaa cararaya kaa duburjeedinaya ragcaad tuko 2 ragcadood tuko sujuudda iyo salaada badi markastood sujuuddo maaragta ilaahay bari inuu waswaaskaas iyo shaydaanka kaa qabto لأن السجود بني آدم كمركي سجودان ضدك مسلمين تاع وإلهي أو سجودان شيطان كدور كوكتشوا وأو عرّا وأو أويا محكو يسيني حليه بني آدم كي وأي سجودين سيدا سينا جنكم متيستين أنا ونا سجود باليري وان ديدي نار ayaa ii sugnaatay buli sida awgeed ma arki karo qof ilaahigiisa u sujuudsan ma arki karo hadduu arkana dhabarku ka jabaya balaayihi baa ku dhacaysa marka fi sujuud ilaahay ku bari shaytaankaas inuu ka dheereeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka aqbalaya bariyada sujuudda ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu bariyo waxay ka mid tahay xilliyada marka la aqbalo bariyada la aqbalo ay ka mid tahay sujuudda lagu dheeraado ducada lagu dheeraado ilaahay lagu bariyo subhanahu wa ta'ala marka ha quusanin hadii shakigaas iyo waswaaskaas uu kugu badan yahay siyaabaha samee quraanka la saaxiib mar walba oo wax qabanaysana shaydaanka iska maar waa fariintaas ayaan idin jeclaysiinaa idin la wadaago walaalaha channelka ku xiran waxaana u sheegaynaa oo kale arrin yar oo ogeysiis ah oo ku saabsan inaanu bilaabayno barnaamijyo kale oo taxana ah horey waxaad ula soo socoteen inaan inta badan faahfaahino waxyaalaha xasidka iyo sixirka iyo cuduradaas balse codsiyo nooga yimid walaalaha qaarkood ku wareeray cudurada inaan wax badan u faahfaahiyo cudurkan loo yaqaano musibiyaanta ama dabeesha waxyaalaha shayaadiinta qofka dumarka wareega u fariisata ragana saameynta ku yeelata qaybahaas ayaanu geli doonaa insha Allah ta'ala duruus taxana ah ayaanu ka sameyn doonaa aad baad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi ta'ala wabarakaatuh bulshooy bishaaro warheede waa maxay bishaaradu soo moogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex cilaajinayay oo Dr. Axmed Cilaaj uu furay xarun dadka si gaar ah lagu daweeyo ilaan xaaji xasadkayga baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga 100 qof igu dhex daraye haddaba ina keen aan booqanay Dr. Axmed Cilaaj laga raysay wixii hore Al-Hilaal Herbal Online waa xarun daawo dhireed oo leh goob jiifa bukaanku ku nasto ilaa uu ka bogsanayo laguna daaweyn sidoo kale Al-Hilaal Herbal Online waxay leedahay gargaarka degdega ah oo qofka xanuunsanaya gurigiisa lagu soo daaweyni Al-Hilaal Herbal Online waxa kale oo laga daweyn macaanka dhiigkarka rheumatismka maqaarka kili xanuunka massage toobin waafaqsan sunnada allergiga gastriga iyo daawo ka caawinaysa dhalmalaanta jinka iyo umusabiyaanka xarunta Al-Hilaal Herbal Online waxay ka daaweynaysaa riyooyinka baqdinta leh iyo qarowga ayada uu diyaar kugu yahay specialist Dr. Axmed Cilaad daawadiisana lagu caafimaaday haddaba waxba yaan hadal kugu daalinine soo booqo xarunta Al-Hilaal Herbal Online oo ku taala xaafadda Isli Second Avenue gaar ahaan qaybta 7 Street wixii faafayntaasi dheer kala xiriir telefoon lambarka 7 7 7 7 oo laga heli karo Dr. Axmed Cilaaj